10 مليون 20 مليون 15 مليون تاكلها با سعيد عبد الله دني لو soo diraya hal qoriyo isneebar oo cadawga aanu iskaga difaacno iyo hal cagaf oo aanu wadada ku goyno meesha qaraxu naga soo galayana noogu gadi maayo waxa weeyaan nagana yeeli maayo waxaad yeeshaan marka waxa ku habsaaminina waxaad u gudubtaan inaad gudi samaysataan waxaad u gudubtaan inaad madax samaysataan waxaad u gudubtaan inaad ismaqashaan waxaad u gudubtaan inaad taladiina miday waa codka sirta ah ee hadda baraha bulshada qabsaday barta Facebook aad ugu baahay fariinta ka timid General Ciise Yulux oo kamid ah saraakiisha ciidanka Puntland ee ka dagaalamaya buuraleyda Calmiskaad yaa weeye cid soo qarxisay ee xilligan lagu tuunsan yahay inay codka generaalka ay banaanka keeneen codka la soo qarxiyay oo dhameystiran waxyaabihii ku hadlayay generaalku ma wax jira abaa mise wax uu iska samaystay isagu iyo waxa la gudboon maantay beesha uu la hadlayay oo ah reerkiisa Cali Suleymaan waan idin la wadaagi doonaa dhammaan macluumaadadaas xaqiiqada waxay tahay in isbuucan ama maalmaha inagu soo wajahan ugu dambeyn la gaari doono natiijada dagaalka ama kooxda argagixisada ah ee Daacish ayaa jilib ka aasan doonta gaatir oodan oo meesha hadda lagu wajahan yahay ama ciidamada difaaca Puntland ayaa guuleysanaya generaalkuna waa ka dhawaajiyay arintaas waa idin la wadaagi doonaa dhammaan macluumaadadaasi soo dhawaada dhammaantiin muuqaalkan la gareeya share gareeya YouTube-kana ku soo biira aad baad u mahadsantiin intaana war dhanba u gudbin codka generaalka waxa ilaahay mahadiisa in uu yahay isagu nin ciidan ah oo khibradiisu ay tustay inuusan macluumaadyo muhiim ah una banaanka keenin xataa isagoo la hadlayo reerkiisa balse si guud uu u diray fariin dhiirigelin u ahayd ciidamada difaaca Puntland xaalka maanta ciidamada difaaca Puntland ay wajahayaan nooca dagaalka uu yahay cid la dagaalamayo waxa looga baahan yahay qabiil kasta oo reer Puntland ah inuu kaga warqabo ciidankiisa kaga sugan jiidaha Calmiskaad fariin adag waxay ahayd kumbileed ah oo isku dhameystiran oo generaalku uu kula hadlay dawladda Puntland iyo qabaa'ilka Puntland waa isaga oo la hadlaya reerkiisa oo aan ugu talagelin xataa reeraha kale ee Puntland waxaadna moodaa in generaalku sii ogaa in codkiisa banaanka la keeni doono taas oo keentay inuu wax badanna la kala haro codkiisuna uu noqday cod anfacay ummadda reer Puntland xilligan xasaasiga ah muhiimadda guud ee dulucda codka generaalku aan hadda idin la wadaagi doono waxa weeye faraska waxa usha loogu dhuftaa in xawaaraha uu sii badiyo ama uu sii dheereeyo waa kana ila dhageysta codka uu beeshiisa Cali Ismaaciil Cali Suleymaan la wadaagay generaalku waxaan rabaa inaan idin sheego Daacish 2 dagaal 3 dagaal 4 dagaal baa lala galay waa laga guuleystay way se joogtaayo way badantahay way buuxdaa waxa weeyaan argagixiso weeye waxay isticmaalaysaa qarax waxay isticmaalaysaa baabuur qaraxa waxay isticmaalaysaa miino dhulka lagu aasaayo waxay isticmaalaysaa isneebar waxyaalahaas oo dhan bay adeegsanaysaa tabarteedii weynayd waa miiqantay dagaalka mar dhow waa la kala baxayaa bisha tan gudaheeda qolo baa jifida jiidaysa ama Daacish baa laga adkaanayaa ama ciidamada Puntland baa laga adkaanayaa waxaan rabaa horta inaan idin sheego haddaad wax qabanaysaaniin oo wax qabadku idinka dhab yahay dad idinka idinla midaba taladooda iyo tayadooda iyo muruqooda iyo maalkooda intay meel isugu geeyeen dekada ku dhistay idinka waxa la idinka baahan yahay logistico maanta dalka lagu xoreeyo weeye haddaad awoodi kartaan qofkii qof lacag isaga dira ama 10kii qof oo qof lacag u diraana waxba ma ay qaban
dad baa waxa laga sheegayaa dawladdaanu lacagta u diraynaa dawladda cashuurtii boosaasa lagaga qaadi jiray ganacsatada boosaasood raashin iyo bagaash iyo alaab bay ku baraxanayeen tani way ka hoosaysaa haddaa dawladda u didhaaniin waxay noqonaysaa waxaad libin iyo weji ku raadinaysaaniin wax cidi idinka baahantaa maaha dawladda adduunkao dhan baa taakulaya cid walbaa taakulaysa 10 milyan 20 milyan 15 milyan oo taakulaa baa Saciid Cabdullaahi Dani loo soo dirayaa hal qoriyo isneebar oo cadowga aanu iskaga difaacno iyo hal cagaf oo aanu wadada ku goyno meesha qaraxu naga soo galayana noogu gadi maayo waxa weeyaan nagana yeeli maayo waxaad yeeshaan marka waxa ku habsaaminina waxaad u gudubtaan inaad guddi samaysataan waxaad u gudubtaan inaad madax samaysataan waxaad u gudubtaan inaad ismaqashaan waxaad u gudubtaan inaad taladiina midaysaan waxa u gudubtaan inaad maalkiina midaysaan intaana la ka adkaan oo cadowgu naga adkaana haddii aad wax qaban ka dhaanin wax nala qabta markaad maalkiina midaysaaniin taladiinana midaysaan muruqiinana midaysaanna waxa weeyaan cid gaara waxa siinina nala soo hadla markaasaanu haddii aan laydmo shayada aanu u baahannahay iyo meesha laga heli karo iyo cidda keeni karta aanu isweydiinaynaa laakiin macno noo samayn mayso ciidana ii badbaadin mayso nin fartu go'day noo badbaadin mayso haddaad galabta 2 milyan 3 milyan noo soo didhaan waxaa wax noo ah oo waxtar noo ah oo difaaca dalka iyo dhimashada iyo dhiigbaxa aad nagala qayb geli kardhaanin inaad noo gadaanin aaladda lagu dirirayo cadowgu nagala soo horkajeedo inaad noo gadaanin meesha laga heli doono waqtiga la heli doono qiimaha ay joogto dib baan ugu noqon doonaa markii wax idinka diyaar garow su-aashaas weydiinaysa marka yay tahay cidda soo barnaamijka keentay codka horta codkan wax dhiba kuma jiraan qofka codka noocaasa barnaamijka keenayna ilama ahan codad kale oo jenaraal ciise yulux uu ku duubay groupka telegramka ee qabiilkiisa buu cafin lahaaye mar hore uu soo gelin lahaa waa sax dagaalka ama puntland baa laga adkaanaya ama daacish baa la jebinaya qof kasta taas waa aaminsan yahay markaan leeyahay macnaheedu inay daacish balaayad tahay oo qar aan la jebin karin ma ah ee waa xaqiiqada dagaalka xataa adoo awood leh ayaad nin ragaa kula mid ah nin ragaa kula mid ah la isma siiyo guusha guushada ilaahay baa xukmiya waa qodob oo waa runtiis weliba maalmaha la isbaran doona waa maalmaha soo socda weeye oo daacish ay diyaarisay ismiidaamayaal 180 kor u dhaafaya qaabkii looga hortagi lahaa iyo shaxdooda ciidamada u taalla waa marka labaad oo ah arrinta dawladda uu yiri generaalku dawladdu madaxweyne Dani hal isneebar iyo hal cagaf xataa nooma keenay waa run oo taas waxa kuugu abdaa ma ahan dawladdu inay xumaynayso iyaga ama ciidamada kale ee Puntland xumaynayso anigu salaano kale nin gobolka mudug ka imaaday baan ahay ciidamo badan oo reer muduga jooga ciidanka reer muduga iyo ciidanka reer bariga ahba waxa laga yaabaa dawladdu wax guud inay soo wada gaaraan salaano kale qoriga isneebariska ay dawladdu keentay oo ay ku soo gaday lacagta qurba joogti shacabku ugu deeqeen waxa laga yaabaa inay hal qori siiso oo baahidii ciidankii mudug ka tagay ayna ku filnayn waa runtiis weey waxa fahmi kara qof ciidan ah baa fahmi kara arrinta uu dawladda u jeedeeyo daliil ma ahan waa wax sax ah oo xeerarka ciidamada iyo dawladaha ah waliba markaynu Soomaaliya joogno dawladdu ma kaafin karto baahida ciidanka waa qodobkaasi saasu asagu ku duur xulan yahayo waa qodob halkaas qorshihiisu uu yahay wuxuu la jeedaa war ama wixii dawladdu heshay dhaqaalaha waxay ku bixinaysaa raashin iyo dhaawac iyo rasaas qoriga aan u baahanahay tusaale kale cagaf hadaan u baahanahay ama aan u baahanahay ii sheeg snipers ma helayo waa runtiis oo wuxuu qabiilkiisa ku baraarujinayaa in wax kasto isagu u haysto ama iyagu u baahan yihiin iyaga laga xisaabtamo oo aysan sheekadooda ku ekaan reer hebelow waxaan lacagtii ku dirnay amal ninka amal lacag ku diray isaga u taala laakiinsi waa in arrinta generaalku ka dhawaajiyay Cali Saleebaan ay shaqadeeda qabtaan haddana way ku jiraan sida aan xogaha ku helayo oo qorshuhu waaba socday ee codka generaalka hadda lagu soo aadiyay si macnaha qolada soo qarxisay ay ummadda fidna u kala dhigdhigaan mana ahan bacod fidna waa cod wanaagsan oo guwaaba ah nin tolkiis la hadlaya xaqiiqada ka hadlaya way
qodobadiisu intaasay qusayaan generaalku waa faraska waxa usha loogu dhufanayo inuu xawaaraha badiyo weeye iyo talada dowladda ma ahan dowladdu inay hakranayso ma ahan inay si kale u hakranayso ee waa xaqiiqada dhabta ah annaga ciidamada naga jooga gobolka mudug halkaas qabaa'ilkana wixii ma taqaanaayay ka dhidhiman ugu daray haddaba qabaa'ilka reer Puntland dagaalkan waa dagaal qaran waad u jeedaan saraakiishii deegaanka u dhalatay baa sidaas u hadlayso reer walba oo reer Puntland oo ciidamadoodu halkaasi ku sugan yihiin wiilashoodu waa inay ka warqabaan ciidamadooda isnaybarra u gadaan wax walba u gadaan waa in dagaalka dawladda aan lagu fiirsan markaan macnaheeda leeyahay waa in hubka loo gado ma ahan dawladda in la yasayo ma aha ama dawladdii laga guurayo ma aha dawladdu waxyaabo badan oo aan lagu fiirsan karin dagaalka in la isgarab taagaa muhiim ah oo qabiil kasta oo reer Puntland gobol kasta oo reer Puntland haddaa idinku gobol isku abaabulaydeen iyo haddaad reer isku abaabuli lahaydeen waa in reer walbo si gaar ah ula socdo ciidamada dagaalkaasi ku jira yey tahay markay cidda banaanka keentay harta ninka Cabdulqaadir Muumin la yiraahdo iyo ninkan Ciise Yilux waa isku reer way isku jifiyoosan way bicdiyaan cali reer fiqi sida la ii sheegay oo macquul dad ina muumin laftigiisu hadeeru meesha ka tagay youtube-yada ku jira muxaadarooyinkiisa way dhici kartaa dad jaajuusiin u habaajiri kara oo qabiilka cali salaamanka ku jiro asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay ku dhacday in la jaajuusay iyagoo ku soo socdo furashadii Makka bay ku soo baala jaajuusay markay soo socdeen marka waxay kala taagan yihiin Ciise Yilux iyo ina muumin halkii ay kala joogeen Abu Lahab ama Abu Jahl iyo Umar bin Khattab ama Hamza bin Abd al-Muttalib kuwana diinta islaamka u gargaarayeen kuwana gaalada la shaqeynayeen oo Hamza nabiga adeerkiisa calayhi salaatu wasalaam diintu u gargaarayo shahaadadii Uhud ayuu ku jiray halka Abu Jahl nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhibi jiray waliba si adag diinta ula dagaalamay marka labadaas maanta kala taagan yihiin ee cali Salebanow Abu Jahl iyo Hamza kaad u hiilin lahaydeen maanta ba idinku goost taladii waa taasa ma sha Allah hadda shaqo fiican baad qabateen saan xogaha ku helay soo gaarayo laakiin faanoole farikama qodna ninkaas uu idan la hadlay wax yar oo canaan oo kulul loo ku darsanay cali Saleeman waa reer Ilaahay iska nimciyay moogta iskana qabow dad dib badan ma ah dadka lacagta baada idan kaga qaaday ina muumin ku jiro waad rabtaan in lacag baada idan kaga qaadaan Ciise Yilux oo sharafta deegaankiina difaacayna inaad ma ahan inaad wax ka hakranaysaa laakiin si xoogaa waxaanu ka dareennay codkiisa in aad isdhigateen ka kaca fadhiga ninkaas Ciise Yilux ku mintida ninkaas Ciise Yilux ku mintida wallahi waa xaqqa inuusan ka gaban waa geesi reer Puntland waa geesi ma jeerteena geesi cali Suleymaan ninka lagu mintido maanta wax kasta oo u ban afkiisa ku Allah waa in la garbista ma sha Allah Ilaahay baa idinka barakeeyay hanti Ilaahay baa meelaad kala dhigtaan baa raadihiin ciidankaas oo ninkaas ma taqaanaayay Ciise Yilux kaga dhaweejiyay waa in ninkaas lagu mintido waa in ma ahan kaliya cali Salebaan hatta daarood iyo harti ninkaas wuxuu ka mid yahay generaalada loogu kalsoon badan cadow badan buu leeyahay Daacish 2015 waxay gaareen heer ay sariirtiisa qarax ugu xiraan Ilaahay ka badbaadiyay marar badan liis baa lagu daray waa cadowyada uu leeyahay ka mid walaw laga saaray aakhirkii marka ninkaas waa nin karamaade waa geesi ninkaas lagu mintido cali Salebaan Ciise Yilux waa geesigaas weeyaha lagu mintido dagaalkana suuqa hadlay oo jidda waana xaqiiqada dhabta ah anigu intaas aan leeyahay wabillahi tawfiiq